taleex waxay ugu aasaysan tahay bulshooyinka Soomaaliyeed xaruntii gobonimo doonka iyo tixraaca muuqda ee taariikhdii daraawiishta oo ay saldhig u ahayd sanado badan lagana soo abaabuli jiray weeraradii gumaysidiidka ahaa waxayna ka kooban tahay taleex 4 xaafadood waana degmo ka tirsan gobolka Sool degmanimadana qaadatay sanadii 1972 bedka degmada taleex waa 812 kiiloomitir oo isku weera waa degmo aad u ballaaran waxay u qalantaa gobol in la siiyo waxa hoos yimaada oo ay xukuntaa 11 magaalo oo ku dhex jira 812 kiiloomitir marka aad gudaha u gasho degmadan qadiimiga ah taariikhaha kala duwan hodanka ku ah ee taleex waxay indhaha u qabanayaan daaro qalcado u dhisan qodbiyo kala duwan oo aan qarni kadib wali isbedel badani ka muuqan iyo daartii ugu horeysay ee qaaradda Afrika ee loo adeegsado duqeyn diyaaradeed waxay u dhisan tahay ama u qaabab tahay qalcado marka aad eegtid xisaab ahaan iyo qaabka taatiiska ay u dhisan yihiinba noqonaya qaabab aan qofku meesha ka bilowdaan iyo meesha ku dhamaan uusan garan karin waxaa ku yaala gudaha taleex 3 xarumood oo isa saaran ayna lahaayeen daraawiishtii sayidku mid walibana qaban jirtay shaqooyin gaar ah intii lagu guda jiray halgankii gobonimo doonka halkan waxa weeye waa daar ilaalo waa xaruntii sayid cabdulla xasan waa meel taariikh u leh waxaan joogi jiray ciidamada iyo ilaalada iyo saraakiisha marka tanoo diyaartan oo duntay meelaha wax laga arki jireen dadka wax hawd ka soo socdana wala arki jiray wixii xadeed ka socdana wala arki jiray laakiin hadda waa kala dhantaan tahay waa aragtaan ciidanka inta lagu halka weerarka ka galiyay ayuu haystay farduhu waxa lagu qiyaasaa 8,000 9,000 labadaasba waa la yiraahdaa farda halka heeganka ka jirado ilaa kirir ilaa meesha la yiraahdo taleex waxaa si joogta ah u yimaada dalxiisayaal Soomaaliyeed taariikhyahano iyo abwaanaha hayay dhagmaqalka taariikhda dheer ee degmadani taleex waana goob u muhiim ah dalxiiska iyo dhaqanka Soomaalida maanta markaan halkan maanta imid waxaan dib u noqday hal qarni muddo ku dhow oo waxaan moodaa xilligaas inaan joogo 1913 inaan joogo anigu baan isla waxaana keenay shucuurta iyo dareenka meesha ka muuqda ummadda Soomaaliyeed waxaan oran lahaa waxa dalxiis kuugu filan iyo inaad xilliga nasniyaha aad waqti ku qaadato ama aad taariikh ku qorto meelihii mudnaanta lahaa sida taleex oo kale marka ma sha Allah meeshan waxaan aad iyo runtii maanta ay noogu abuurtay arrin cusub oo u baahan in qof kasto Soomaali ah oo iman kara ama dalxiis ku iman kara ay u iman karo kana faa'iideysan karo sababtoo waxay xataa qayb ka qaadan kartaa in la baari karo taariikhda fog ee ku aasan haddii la dayactiro waxa ka baxay waxa kamid ah in ay noqoto goob dalxiis oo caalamku yimaadaan oo taariikhda laga dheegto oo bulshada iyo dadka Soomaaliyeedba u noqota meel ay maskaxda ku hayaan in halgankan in gobonimada iyo xornimada haystaan loo soo maray halgan dheer iyo meesha ka yimi qarni iyo 7 sano oo dayactir la'aan ah kadib waxaa ka muuqda goobaha taariikhiga ah ee taleex dayac iyo burbur xoogan oo u baahan daba qabasho taariikheed si aysan u lumin tixraacani muhiimka u ah sooyaalka taariikheed ee bulshooyinka Soomaaliyeed waxaan soo jeedinaynaa oo baaq dheer ku direynaa dawladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo ummadda Soomaaliyeedba in hal la badbaadiyo goobahan taariikhiga oo ay taleex ugu horeyso oo dhaxal ummadeed waa taleex iyo falaad lambar 1 halka joogno oo falaad oo madaxtooyadii waa meeshii ugu horeysay ee Geeska Afrika diyaar lagu duqeeyay